السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaanu soo qaadanaynaa aayad ka mid ah quraanka kariimka ah. aayadaas oo tilmaamayso macaani iyo hanuunin iyo irshaadaad iyo ahkaam badan xambaarsan. aayadda maanta aanu soo qaadanayno waa aayadda Allah subxaanahu wa tacaala fi suurati Israa uu ku yiri asagoo tilmaamaya Allah subxaanahu wa tacaala fadliga iyo qiimaha iyo wanaaga quraanka kariimka uu leeyahay iyo maqaamka quraanka kariimka uu joogo dhinac walba. asagoo tilmaamaya Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwamu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله سبحانه وتعالى وحليه قرآن كان وهنونية خلقه هنونية وتوسية وناك يا خير رمبك هنونية هذي الدنيا تهي هذي آخرتها هيبا وحكروا كهنونية xaaladii hiya aqwam xaaladda ugu wanaaga badan ugu toosnaanta badan ayuu ku hanuuniyaa lillatii hiya aqwam xaaladda ugu wanaaga badan ayuu qur'aanka kariimka ah ku hanuuniyaa khalqiga. aqwam xagga caqiidada, xagga acmaasha, xagga akhlaaqda intaba. waa aayad qofkii u fiirsado macnaheeda fiiriyo dhuuxo ku filan aad cadiim u ah wey. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qur'aanka kariimka ah wuxuu dadka ku hanuuniyaa midda ugu wanaaga badan. xaqiiqatan aayadda qofkii akhriyo kutubu tafasiir mid un ka mid iska soo qabsado hoosna u fiiriyo akhriyo wuxuu arkayaa waxyaabo cajaa'ib leh, waxyaabo waaweyn oo nooc walbo diinta ka mid ah ayuu arkaya. kutubta aadka u qiimaha badan oo baabka aadka uga hadlay waxaa ka mid ah kitaabka tafsiirka ee adwaa'ul bayaanka. bal akhriya aayaddan hoosteeda akhriya. waxaanu tilmaami doonaa toosnaantaas qur'aanka kariimka uu tilmaamay qaar ka mid ah ayaanu tilmaamaynaa. aad bay u ballaaranta aayadda waxyaabaha ay tilmaamayso ilaa dhowr qodobo ka mid ahaan tilmaamaynaa. midda ugu wanaaga badan buu qur'aanka khalqiga ku hanuuninayaa. kow, towxiidka ka mid ah. towxiidka ayuu ku hanuuninayaa noocyadiisa kala duwan oo dhan buu ku hanuuninayaa. hadiga qur'aanka qodobka labaad oo qur'aanka dadka uu ku hanuuninaya waxaa ka mid ah inuu u caddeeyo axkaamta tashriica. qofkii meelaan asaga ahayn wax ka raadiya ama wax moodo waa luunsan yahay. qur'aanka iyo sunnada oo isa saaran labadaa waxaan ahayn qofkii wax ka raadiyo iyo haddee ijmaaca iyo qiyaaska culummada ee saxiixa waxaan ahayn qofki wax ka raadiyo waa luunsan yahay. taasaa ka mid ah hadiga qur'aanka aqwamka ah ee khalqiga uu ku hanuuninayo. qodobka saddexaad oo aqwamka ah oo qur'aanka dadka uu ku hanuuninayo waxaa ka mid ah hadyuhu ilaa ana ataqaduma laa yunaafi fi اtamasuki biddiin. horumarka ma diidayo qur'aankaada inaad haysato, ku dhaqanto, ku camal fasho, ma diideyso horumarka adduunyada ah, ma diideyso. waa diin la jaan qaadayso xaalad kasta. taasaa ka mid ah hadiga aqwamka ahee qur'aanka uu tilmaamayo. waxaa ka mid ah akhlaaqda aadka u sareysa ee hadiga qur'aanka ka midka ah ee aqwamka ah waxaa ka mid ah qur'aanka wuxuu mamnuucay oo uu diiday xumaanta,
zinada, kidbiga, khiyaanada, dhagarta, waxaasoo dhan buu diiday qur-aanka kariimka ah. wuxuu ku toosinayaa midda aqwamka ahee akhlaaqda ahee wanaagsan. qur-aanka hadyigiisa waxaa ka mid ah hadday xumaantii ayada ahaydoo foosha xumeed ay dhacdo, qaabka sharciga uu ugu talagalay oo qofka uu isku nadiifin karo. hal tusaale ka soo qaadano, akhlaaqda xun waxaa ka mid ah zinada ka mid ah. qur-aanka hadyigiisa marka waxaa ka mid ah qofka hadduu zinaysto nidaam uu isku nadiifin karo ayuu qur-aanka u jideeyey. haddii uu yahay qof xarig islaam ah horey usoo xiray oo zawjo horey usoo guursaday hadduu yahay, xukunkiisu qur-aanka meel buu saaray oo waa in dhagax lagu dilo. in dhagax lagu dilaana maslaxa iyo khayr iyo wanaag iyo toosnaan ugu jirta. dadka qaar fahamka uu ka xumaaday siday u fahmeen ma ahan. xikmad iyo tadhiir iyo wanaag baa ku jira. waxaa kaloo ka mid a qofka aan guur horey usoo marin, haddii xumaantaa iyo zinada ay ka dhacdo, qaabkii loola tacaamuli lahaa oo asagana uu isku nadiifin lahaa, qur-aanka asagana wuu caddeeyey. akhlaaqdaas wanaagsan buu ilaalinayaa, cifada iyo dhowrsanaanta ayuu ilaalinayaa. hiya lilatii hiya aqwam weeye marka qur-aanka kariimka ah. waxaa kaloo ka mid ah axkaamta qur-aanka aqwamka ah dadka uu ku toosiyey. waxaa ka mid ah haddii qofka uu xado, in wax la xado waa akhlaaq xun wey, waa wax aada u xun wey, waa khiyaano, waxa weeyaan dadka hantidooda inaad dhacdo ama aada boobto ama si khufya ah aada u xado lama ogolo. hadday dhacdo qaabka qofka uu oga noqonahayo oo uga toobadkeenahayana qur-aanka wuu jideeyey oo wuxuu ku toosiyey iyadana oo xugum ilaahay subxana wa tacala uu ka soo dejiyey midda ugu toosan, ugu aswabsan, ugu cadaalada badan. maalan qadcu saariq, gacanta in laga gooyo kale, xikmad iyo wanaag baana ku jira. hagaagsanaanta bulshadana ku jirta, dhowrsanaanta bulshada ku jirta. qofkana mar walba gacanta la iskama goynahaye qadar waxaa jira haddii waxa uu qaatay ama uu xaday ay gaarto gacanta laga goynayo. baabkeeda iyo abwaabteeda ugu noqo ka raajici. hadiga qur-aanka kariimka ah aadka u qiimaha badan ee aqwamka ah oo aswabka ah waxaa ka mid ah alqisaas. qofka haddii uu qof dilo in loo qisaasayo. walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab lacalakum tattaquun bu yihi allah subxaanahu wa tacaala. insaanka haddii uu caroodo oo uu hamiyo oo uu damco inuu wax dilo, insaan kale inuu ku xadgudbo uu damco oo haddana uu xusuusto hadduu dilo in loo dilayo, khaafa alciqaab fataraka alqatl. waa hanuunka iyo hidaayada iyo toosnaanta qur-aanka ayay ka mid tahay. ilaahay subxaana wa tacaala xikmadda uu u jideeyeyba waxaaba ka mid ah in la kala nabad galo oo qofba qof kale uusan ku xadgudbin, oo markii uu damco uu xanaaqo inuu ku xadgudbo inuu xusuusto tashriicii iyo xukumkii allah subxaana wa tacaala uu ka dejiyey. hadday tahay ciqaab iyo waxa ka dhalanahaya, iyo hadday tahay in naftiisaba loo dilahayo loo qisaasahay. walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab lacalakum tattaquun. noolal baa ku jirta. wadada aqwamka ah oo qur-aanka kariimka ah ama aayadda qur-aanka ay tilmaamayso waxaa ka mid ah xagga guurka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu baneeyey. wuxuuna u baneeyey midda ugu aqwamsan, ugu aswabsan ayuu u baneeyey. raggi waxaa loo baneeyey ilaa 4 xaas inay guursan karaan. haddaysan awoodinna hal inay iskaga gaabsadaan. waa xukumka ugu wanaaga badan, ugu qiimaha badan, ugu aswabsan, ugu cadaalada badan. xikmadda ku jirta haddaan dhahna aan galno ama aan tilmaannana mawduucu wuunula dheeranayaa. xikmado badan oo waxna la garan karo waxna aanan la garan karin ayaa ku jirta. waxaa ka mid a ilaahi subxaana wa tacaala inuu ragga u baneeyey addoomaha ay soo
jihaadka markii la galay lasoo qabsado inuu ilaahay subxaana watacaala ragga u baneeyey ayaa ka mid ah. nacam aayado badan oo qur-aanka uu ku tilmaamay oo maa malakat aymaanukum fa inahum gayru maluumiin ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah hadiga qur-aanka ahee aswabka ahee acdalka ahee qur-aanka uu tilmaamahayo. waa tusaalayaal waxaan soo qaadanayna. waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala ragga iyo dumarka u kala fadilay, mid walbana mas-uuliyaad khaas u ah uu siiyey. waxyaabaha ugu kala fadilay waxaa ka mid ah miiraadka, ood garanaysaan dhaxalkii ragga iyo dumarka ilahi subxana wataala ku kala fadilay. waxaa ka mid ah hadiga qur-aanka kariimka ah ee wanaaga badan oo qiimaha badan, midda hadda aan sheegnay oo inuu ilaahay subxana watacaala raggii iyo dumarkii uu kala fadilay. alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ayaa ka mid ah hadiga qur-aanka ee wanaaga badan. aayadda iyo macluumaadkeeda qofkii rabo ama daalib ah ama inuu wax akhriyo jecel, waxaan dhihi lahaa talana ku siin lahaa inuu ka raajiciyo mar iyo 2 iyo 3 jeerba kitaabka tafsiirka ee qur-aanka ah adwaa ulbayaan, inuu ku noqdo bal aayadda uu dul istaago uu fiiriyo. waxaa hadda aan tilmaanay waa bacdu lamhila, waa bacdu lamhila. intaa ayaan ku joojinaynaa jalsadeena. hada wabillahi towfiiq, wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.